السلام عليكم كنت وعنا وناكسن كسو دوادا صحابي هالكا كلا سعوتان وأوغالك عيارها فضلنا سبسكرايب لايكسات هذا المعصيطة كسو دوادا أوغالك عيارها ما أنت لقليا maalintii ugu dambeysay suuqa kala iibsiga xagaaga iyada oo kooxaha kala duwan dadaalo u gali doonaan inay dhameystiraan saxiixyadooda. kooxo badan ayaa la filayay inay si weyn ugu mashquulaan suuqa saacadaha soo socda iyada oo doonaya inay koox walba iska xoojiso booska ay ka jilicsan tahay ilaa iyo dhamaadka xilciyaareedka. kooxaha laga yaabo inay suuqa sida waalida u galaan waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Barcelona iyo kooxo kale ayaa la filayay inay saacadaha soo socda dhameystiraan saxiix cusub ama ku dhawaaqaan saxiix cusub oo ay hore u dhameystireen. haddaba ogaalka ciyaaraha ayaa si toos ah idinkula socodsiin doona wax kasta ku saabsan suuqa ugu horeysay. fadlan hadda booqata YouTube-kayga fadlan subscribe-ta noogu caawi lacagtana noogu gaarsii si ay u gaarto dad badan asxaabtaadan ku share garay. maanta oo 3 saac ayuu xir ayaa laga yaabaa in uu ugu dambeeyo suuqa kala iibsiga. haddaba goorma ayuu suuqa si rasmi ah u xirmi doonaa? dad badan ayaa intaas isweydiiyeen waxay isdhaan suuqa shimo si rasmi xirmaa. suuqa England iyo Scotland ayaa ka xirmi doono 11 habeenimo waqtiga UK taasoo ku beegan 8 habeenimo ee waqtiga Soomaaliya. suuqa Jarmalka ayaa xirmi doono 5 galabnimo ee dalka kuna beegan 1 saac fiidnimo ama 1 saac habeenimo ee waqtiga Soomaaliya. suuqa Talyaani ayaa xirmi doono 1 fiidnimo kuna beegan 3 saac habeenimo dhanka Soomaaliya. suuqa Spain iyo Faransiiska waa isku mid ayaa xirmi doono 1 habeenimo kuna beegan 8 saac habeenimo ee waqtiga Soomaaliya. intaas waa suuqa. ciyaartoy badan ayaa suuqa loo xariirinaya kooxda kubadda cagta Manchester United, Chelsea iyo Liverpool ayaa indhaha ku hayaan laacibka kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee lagu magacaabo Frank de Jong. kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa doonayso inay dhameystirto difaaca gabka bidix uga ciyaar kooxda kubadda cagta The Blues Chelsea ee Marco Alonso kaasoo oo hadda heshiis la gaareen. dhanka kale hadda u weexso tababaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool Klopp ayaa xaqiijiyay dhaawaca Henderson uu dhaawac muruqa ka soo gaaray kulankii xalay wuxuuna sidoo kale ka hadlay suuqa kala iibsiga ee maalinta ugu dambeyn in aan wax saxiixyo ah sameeyno laakiin inta uu waqtiga dhiman yahay albaabka ma aha in aan xirno ayuu Klopp u sheegay isaga oo doonayo inuu saxiixdo maadaama Klopp oo soo hor ugu maqnaay ciyaaryahanka Thiago Alcantara haddana uu ka dhaawacmay Henderson. taas waxay u badan tahay Liverpool inay xoog ka saari doonto ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ee Julian Bellingham ama haddii si toos inay u wareegi doonto kooxda kubadda cagta Barcelona laacibkeeda dhaxda u ciyaaro ee u dhashtay Holland ee lagu magacaabo Frank de Jong. isla barnaamijkan ku jirnaa fadlan haddii taa markii kugu cusub soo booqatay fadlan subscribe inoo saar aad ayaan kaaga mahad celinaynaa daawashadaada. waxaan isku daba dhigaynaa kulamada oo jiro iyo kulamadii xalay la leelay marka fadlan haddii taa markii kugu horeysay soo booqatay YouTube channelkeena fadlan subscribe saar like saar gambaleelka nufuro asxaabtaada u share garay si dad badan u gaaraan. aad ay ka mahad celinayaa baad ka mahad celinaynaa qaabkaad noola socotay. waxaan rabnaa inaan si toos u gudbiyo natiijooyinkii kulamada xalay la ciyaaray. xalay waxaa la ciyaaray kulamo aad iyo aad kulamo xiiso iyo xamaasad leh. kulamadaas ayaan rabaa inaan 2-1 aan ka soo dhaho markii la socda asxaabi aad kooxda kubadda cagta waxaan ka bilaabaynaa horyaalka Premier League ayaa laga ciyaaray kulamo aad iyo aad u xiiso badan. kooxda kubadda cagta Bournemouth iyo Wolverhampton ayaa ku dhamaatay eber gool la'aan. kooxda kubadda Arsenal ayaa martigelisay kooxda Aston Villa kadibna waxay ku garaacday 2 gool iyo gool. kooxda kubadda Arsenal waxaa goolasho dhalay Gabriel Jesus iyo Gabriel Martinelli ayaa u dhaliyeen. kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa ku badisay 6 gool iyadoo ku xasuuqday kooxda kubadda cagta Nottingham Forest. West Ham iyo Tottenham ayaa ku dhamaaday gool iyo gool. kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa waqti xun gool dhalisay ciyaaryahankeeda Carvalho ayaa u dhaliyay waxayna ku dhamaatay 2 gool iyo gool. dhanka Serie A Ingilina kooxda kubadda cagta Empoli iyo Frosinone ayaa galeen gool iyo gool. Sampdoria iyo Lazio gool iyo gool. Udinese Fiorentina Liverpool kubadda Juventus iyo Spezia waxay ku dhamaatay 2 gool ee kubadda kooxda kubadda cagta Juventus. Napoli Braga ayaa loo qabtay Lecce ayaa ku qabatay. France Ligue 1 ka daagal Angers iyo Rennes 4 gool ay kubadda kooxda Reims. Lyon ayaa 2-1 ku badisay kooxda Monaco ayaa lagu dhuftay 4 gool. Montpellier iyo Genk ayaa ku dhamaatay 2 gool iyo eber. kooxda kubadda Strasbourg iyo Nantes ayaa ku dhamaaday gool iyo gool.
kooxda kubadda cagta Lens iyo Lorient ayaa ku dhamaaday. Lens ayaa ku badisay 5 gool. Kooxda kubadda cagta Lille iyo Nice ayaa looga badishay gool iyo 2 gool. dhanka kale kooxda kubadda cagta Marseille iyo Clermont ayaa ku dhamaaday gool iyo eber ay ku badisay kooxda kubadda cagta Marseille. Rennes iyo Brest ayaa ku dhamaaday 3 gool iyo gool. waxaan baskool Rennes kooxda kubadda cagta Toulouse iyo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayay ku dhamaatay waxayna ku dhamaatay 3 gool iyo eber kooxda kubadda cagta. dhanka kale waxa horyaalka Jarmalka lama ciyaarin hal ciyaar ayaa jirtay waxaana ciyaaray koobka Jarmalka waxaana dheelaysay Victoria Cologne iyo kooxda kubadda cagta Bayern Munich waxayna ku dhamaatay 5 gool ee guush ku raacday kooxda kubadda cagta Munich. goolashu dhaliyeen ciyaaryahanka loogu magacaabo Greenberg Moti Isciido Maane ayaana shabaqa gaaray. waana intaas barnaamijkeena. okay waxaan fiirinaynaa kulamada caawa jiro بليز فضلا هديتها مركي كو هوريسي يوتيوب كي سو بوقتي فضلا سبسكرايب يسار لايك يسار جنبالال كان فرو اصحابتانا مشار غري caawa waxaa jiro kulamo aad iyo aad u xiiso badan waxaa ciyaara kooxda kubadda cagta Leicester City kooxda kubadda cagta Manchester United saacaduna waa 4 habeenimo. zeeraad waxaa jiro laba ciyaar waxaa ciyaara kooxda kubadda Atlanta iyo Torino waxayna soo galaysaa 4 saac oo roodhima kooxda kubadda cagta Bologna iyo Salernitana way ciyaarayaan ayadana waxay soo galaysaa 4 saac oo roodhima horyaalka Ajax Ezat Alkamara iyo waxaa dheelanay Nijman waxayna soo galaysaa 3 saac. okay horyaalka Belgium Anderlecht iyo Gent ayaa dheelay waxayna soo galaysaa iyadana 3 saac bar. okay waxaan aad ayaan kaad malcelinay daawashada muuqaalka fadlan hadaa inta soo gaartay fadlan subscribe saar like saar si ay dhiirigelin noo noqoto asxaabtaanu share garay aad ayaan kaad malcelinay daawashada muuqaalkaada. halkan waxaan kusoo goobaynaa barnaamijkeena ciyaaraha aad kala socoteen xilligan oo kale midkaan iyo mid kale insha Allah.